waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay الله وبركاته وعن wanaagsan xiisadii hore waxa ka soo hadalay chemical reaction iyo chemical equation iyo maxaa la dhahdaa reactant iyo maxaa la dhahdaa product iyo sida loo qoro chemical equation ka iyo xeerarka la raaco maanta waxaan ka hadli doonaa rate of the reaction macnaheedu waxa weeyaan muddada ay qaadanayso in reaction uu socdo rate waxa la dhahdaa inta uu shay dheeraynayo ama inta uu shay gaabinayo la dhahdaa rate marka waxaan ka hadli doonaa rate of the reaction oo u jeedno muddada ay qaadanayso in reactantigu ay falgalaan oo ay isku bedelaan product oo maxay ah maxsuul isagoo waxaan reactantigu markay isku tagaan waxay soo saaraan product maanta markaan leenahay rate of the reaction waxaan eegaynaa muddo intee leeg ayaabay qaadatay in inta reactantigu falgalayaasha ay falgaleen ay soo saareen product oo maxay ah maxsuul marka horta waxaan ku bilaabay what's the rate waa maxay rate waxa la dhahdaa inta uu shay dheeraynayo ama inta uu shay gaabinayo la dhahdaa maxay rate marka waxa la dhahdaa summation waa cabir lagu cabiro how fast inta uu shay dheeraynayo or ama slow something inta uu shay maxay gaabinayo ayaa la dhahdaa rate haddaba imika qeexayna su'aasheena ah what is the rate of the reaction ama maxaa la dhahdaa rate of reaction rate of reaction waxa la dhahdaa xawaaraha ama speedka uu ku socdo chemical reaction keenu waxa la dhahdaa rate of reaction marka waxaan leeyahay waa velocity of a chemical reaction waa xawaaraha ama waa speedka rate of reaction tusaale ahaan haddaan isku darno magnesium ayaa waxaan ku daray oxygen waxaa soo baxay maxay magnesium oxide rate wuxuu ka hadlayaa muddo intee leeg ayay qaadatay in magnesium iyo oxygen ay falgalaan oo ay soo saaraan magnesium oxide marka rate of the reaction waa maxay waa xawaaraha uu qaato ama muddada ama speedka uu ku socdo chemical reactionku ayaa la dhahdaa rate of the reaction marka waxaan leenahay waa velocity of the chemical reaction waa xawaaraha ama waa speedka chemical reactionka marka haddaan qeexno rate of reaction waxaan leenahay waa change waa isbedelka that happens dhaca in a single unit of time halkii minidba yani isbedelka dhaca ama isbedelka dhaca in ay qaadato reactantiga in loo bedelo product waxaa la dhahdaa reactant isbedel muddadeedka ay qaadato in reactantiga loo bedelo product waxaa la dhahdaa maxay rate of reaction marka kan wuxuu ku leeyahay waa change waa isbedelka that happens dhaca in a single unit of time halkii maxay minidba oo waxaan ognahay qaybteena ninka waa reactant qaybteena waa maxay product falgalku markastuu sii socdo dhammaanba reactantigani waxay isku bedelayaan maxay product marka by definition wuxuu hoos imanayo muddada ay qaadanayso in reactantigaasi ay isku bedelaan maxay product haddaba reactionada labaan qaybin doonaa fast reaction qaar dheereeya oo muddo yar oo kooban qaata iyo slow reaction qaar muddo badan maxay qaata imika tusaale ahaan markaan leenahay fast reaction oo kale waxa tusaale waa burning gas haddaan gas gubno markaba gaastaas way gubanaysaa slow reaction iska waxa tusaale fiican waa imika fruit gobel rotten oo kale markay doonayso khudaartu inay ay bislaato it takes time waxa qaadataa maxay muddo marka aad u duuduubahaan reaction iska waxa loo qaybiyaa laba fast reaction waa qaar dheereeya qaar muddo kooban markaba qaata iyo slow reaction qaar muddo badan maxay qaata sidoo kale waxaan ka hadli doonaa measuring sida loo cabirayo rate of the reaction xawaaraha ama speedka falgalka reactionkaaga way tusaale ahaan magnesium ayaa lagu daray hydrochloric acid waxaa soo baxay magnesium chloride iyo hydrogen gas marka waxaan cabiri karnaa hortay reactantiga la isticmaalay ayaan cabiri karnaa ama waxaan cabiri karnaa productka soo baxay marka in halkeenan inagu we can measure halkeenan waxaan cabirinaa amount of hydrogen xaddiga hydrogen kaasaan cabirinaa begins a bubble of xaddiga hydrogen u baxay in a form of maxay bubble ayaan cabiri doonaa deedna xogtan iyo daatadan baa la sameeyey waxaa la arkay minidkii koowaad halka waxaa ku qoran time waa muddada halkan waxaa noogu qoran folium mugga baxay markaan minidkii koowaad waxaa baxay
14 سنتيمتر كيوبيك markii labadan la isku daray ee conical flaska la isku daray waxa la arkay minidkii koowaad waxa baxay mugga maxay ah 14 sentimitir cube minidkii labaad aday 25 muu bixin waxa baxay 14 muu ka dhaqaaqay wuxuu tiri 25 way minidkii saddexaad muu gaaray muu bixin arday mugiiba wuxuu ka dhaqaaqay 25 wuxuu gaaray 30 marka halkan waxa xisaabin doonaa minid kasta intee baa baxday iyo sidoo kale waxaan xisaabin doonaa celceliska guud ahaan falgalka oo dhan marka waxaan leenahay rate-ka minidka koowaad rate-ka maxay minidka koowaad marka waxaan xisaabin doonaa halkan rate of each minute minidka koowaad ama minid kastaba intee baa baxday way waxaan leeyahay minidka koowaad the first minute minidka koowaad imisa baxay waa tan way ku muuqataa minidka koowaad mugga baxay waa 14 sentimitir cubic way tolo minidka labaad imisa baxay minidka labaad mugga ku beegan waa maxay waa 25 halkaas ka ilaali macnaheedu maaha minidka labaad 25 baa baxay weelkan uu ka dhacayo falgalka ayaa cabir leh salaam minidkii koowaad muggu wuxuu istaagay 14 minidkii labaad wuxuu istaagay 25 marka waxa baxday inta ka dhaxaysa 14 iyo maxay 25 marka rate-ka minidka labaad wuxuu noqonayaa 25 kan oo laga jaray maxay 14 ka waa 25 sentimitir cubic oo laga jaray -40 sentimitir cubic minidka labaad waxa baxay maxay 12 sentimitir cubic waxaan garan xisaabinaynaa rate-ka minidka saddexaad tolo minidka saddexaadna mug intee leeg ayaa baa baxay minidka saddexaad oo ka maaha 3 baa baxay macnaheedu waxay ka dhigantay 25 buu ka dhaqaaqo wuxuu tegey 3 marka waxaa baxday inta ka dhaxaysa 3 iyo 25 marka waxaan kala jaranaa 3 mugga markaan minidkan doonayo labada ma kala jaray markaan kan doonayo minidka ma kala jaray markaan minidka afraad doonayo mugga baxay labada ma kala jaray markaan minidka shanaad doonayo labada ma kala jaray waxaan ka jarayaa 20 iyo maxay 5 sentimitir cubic waayahay arday labada markaan kala jarno halkan maxaa inaga soo baxaya 8 sentimitir cubic marka bal minidkii koowaad waxa baxay mugga 14 sentimitir cubic minidkii labaad waxa baxay 12 minidkii saddexaad waxa baxay maxay 8 sentimitir cubic mugga waxaan soo saarayaa rate-ka minidka afraad minidka afraad tolo imisa baxay marka minidka afraad joogo si aan u helin mugga baxay labadan baan kala jaraya labadan baan maxay kala jaraya waa 8 iyo 30 sentimitir cubic minus 30 sentimitir maxay cubic waxa inoo soo baxay 5 sentimitir cubic marka macnaheedu waxa ka dhigantay minidka afraad mugga baxay waa 5 sentimitir cubic way minidka shanaad tolo mugga baxay waa imisa minidka shanaad markaan joogo labadan baan kala jaraya si aan u ogaado mugga maxay baxay waa 40 sentimitir cubic oo laga jaray 8 iyo 30 sentimitir cubic waa 2 sentimitir maxay cubic marka bare halkan inta macnaheedu waa maxay minidka koowaad mugga baxay ee hydrogen ahi waa 14 sentimitir cubic 14 sentimitir cubic minidka labaad mugga hydrogen ee baxay waa 12 sentimitir cubic minidka saddexaad mugga baxay waa 8 sentimitir cubic minidka afraad mugga baxay waa 5 sentimitir cubic minidka shanaad waxa baxay 2 sentimitir cubic marka waxaan arkaynaa bare minidkii koowaad ugu badnaa minidkii labaad baa xiga minidkii saddexaad minidkii afraad minidkii shanaad markasta waqtigu sii socda reaction-ku maxay mugga soo baxay oo sii yaraanaya waayo dhammaanba falgalayaasha dhan waxay isku bedelayaan maxay barodhag oo maxsuul ah marka arday maanta waxay ka hadlaynay rate of the reaction-ka iyo noocyada reaction-ka iyo sida loo cabiro iyo hal tusaale ka shaqeynay halkaas aan maanta ku joojinayna. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. aad baa mahadsantihiin.